عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه يسجد دخل وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لتشيرن كيس على امرأة هويني بأصوغلي سو نبي الله صعدوا هويني أصوغلي وبين يديها والحال بين يديها هرتيدا أيهين نون لفتميرد باهرتيدا تعال وداتسن أو أما حسن أما قرور رجال يرى هرتيدا يعني تصبح حال أي كنت تصبيح سنة يسبه كائسجا رحيان تنداتسن لفتميرد كان ويكون تصبيح سنيسة ويكون وردينيسة فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك مكور رما بما شيء هو إسقو أيسر كفض عليك كركاغا من هذا كان كاغا فضل أو أفضل أما كفضل بدن وحكاغانا فضل بدن مكور شيغا محيطة سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق سيدا صلى رواه داود والترمذي كذلك هو حديث كوري ابن حبان ضياف المختار سنة كي سنة وحا كجرا لرد خزيمة أو مجهولة كجرا سيد الذهبي ابن حجر أيليهن سعيد بن أبي هلال با كجرا إساقنا أو مختلط سيد الإمام أحمد يغير كي أيليهن ساس تراد الحديث هو ضعيف حديث كان له يهويني محوء هاي رحيال يرير يلفتميرات كور ديني زو نبي وأركي مصقنا وضعيف طيب وعن صفية قالت وحيتري دخل وحصوق لي علي كركي رسول الله يبقى صوق لي صلى الله عليه وسلم وبين يدي يده هرتي ذا أيالان 4000 أفر كن نواة أو لفتميرات وصبح حالا كنت تصبيح سنة بها إير أفر كن أو لفتميرات بان هرتي ذا سود هذه بيت ونكور دين هيا النبي قال صوق لي فقال مركز وحول لقد صبحتي مياد كنت تصبيح سنة حقيقة أهم بهذاك ما ربا إن تكون كور دينيس وتكون تحسبي سنس ألا أعلمك ميانا كبرين بأكثر وحكب فرضا مما صبحت به واحد كنت تصبيح ست أنت تصبيح ستي ذكر قاد ما أنت نودي وحكا قفل بدن ميانا كو شيء فقال واحد علمني إبر قال مركز وحول فقولي واحد هذا سبحان الله عدد خلقه ألا نزهن خلقي جيس التردد إحالة ليداد إحالة يعني شيء إناد وريتشيسو أنت كو لبا صدق هبل ديه لهي كرك كوضا قبو تردي وكلا يكون نغنس رواه الترمذي باوري حديث كايسا حديث كايسا هو حديث ضعيف بل هو منكر الإمام الترمذي وحوري ليس له إسناد معروف سند معروف ما سند اللي يقانه ما له الحديث كان شيخ الباني نوحوا لي هاي ومنكر حديث كاسي مركا حديث سوغان معها صاصي معنا هاشم بن سعيد الكوفي با كجر انه يدادو او ضعيف ما سوغنا يسغون طيب الامام السيوطي عليه رحمه الله يسوي جامع الصغير كا waxa uu calaamad bixiyay inuu xadiiskaasi saxiix laakiin as-sahih xadiisku waa dhaif bal waa dhaif jiddan waa ضعفigiisu waa xoog badan labadan xadiis ba waxa daliishaday culimada qaba ama culimada qaar kood oo qabay in lagu wardin karo waxaan faraha ahayn laakiin labada xadiis ba haday dhaif yihiin daliil ma galaan halka shay as-sahih nabiga laga hayo wax weeyaan faraha ku wardiya xikmadana waa sheegayo way marxaati furiyo iyaga la weydiin doona abu nabi sallallahu alayhi wasallam amma wixii inta ka soo haray wax sugan ma caalamka tusbuxu goorbu ku soo biiray yaase u horeeyo keenay waa macluumaad muwathaqa waa macluumaad oo yani wax wataway cadaymo wataway wuxuu ithbaatiyay sheekhu oo baxfigaasi ku cadeeyay in cidii ugu horeysay tusbaxa isticmaashay ay ahayd nimanka la yiraahdo buudiyada ma taqaana buudismka waa China iyo Japan iyo meelahaas laga haysta Hindiya qaybo kamida iyo waa diin wathaniya marka buudiyada ugu horeysay wax keenay buudiyadana waxa ka soo qaatay buu yiri hunduuska mise siikh midka ay garan maayo mar hore akhri risalada iyagana waxa ka soo qaatay buu yiri wadaadada kaniisadaha nasaarada ka soo qaatay wadaadada kaniisadahana waxa ka soo qaatay dariiqooyinka suufiyada sabab abtir dheer bay baashu leedahay marka saasa loo daba galay ilaa meeshay ka timid baa la sal gaaday
bal wuxuu leeyahay kaniisadaha wadaadada kaniisadaha tusbaxay wataan iyo kan wadaadadu wataan waxay iska shabahaan intaasoo meelood buladkan yarkaa iyo intan yartee 10 ah gooni u yar baxsan iyo waxyaalo badan bay iska shabahan buu leeyahay waa nafs huwa sooma ahadiistii nabiga markii la daba galay aahaartii saxaabada la daba galana wuxuu leeyahay horta hal xadiis kuma sugna waxaan tusbaxayn in waxaan muxuu u jeedaa aan xubnaha gacanta ahayn inuu nabigu fasaxay oo saxaabadiisa uu fasaxay lama hayo waa koo wax xadiis oo kale ku sugan ma jiro waa mid labaade aahaarta saxaabada ka soo aroortay inay sameyn jireen oo ku wardin jireen ayadana marka la daba galo hal athar oo ka asaxaya ma jiro kulli wada daciif buu maxaa soo hadhay marka waxa soo hadhay warka murtidiisu isugu iimaanaya tusbaxa meel looma hayo sooma tusbax meel looma hayo sunna nabi wala athar saxaabi looma hayo waa waxun dib ka yimid hadduu dib ka yimidna ku kaaftoon sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrul hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam hanuun iyo dariiq waxa ugu khayr badan kii nabiga sallallahu alayhi wasallam hadduu nabigu ummadiisa u og yahay wax faraha ka fiican ama ka khayr badan soo muusan inagu hanuuniya hadduu inoo og yahay wax dhaama wuxuu dhihi lahaa tusbax qaata laakiin nama dhihin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri faraha laazima oo xubnahooda ku wardiya ayagaasa aakhiro wax tarayo wax tarku maxay iyaga idin marqaati kici doono oo laga hadlin doona nabigu sallallahu alayhi wasallam saas daraadeed in la iska daayaa fiican walow culimada qaar kood ay ku dhagan yihiin Imam Suyuti alayhi rahmatullah kitaab buu leeyahay oo masalada ka qoray oo la yiraahdo al-minha fi subha al-minha fi subha la yiraahdo wuxuu ku dhex jiraa kitaabkaasi kitaabkiisan hadda lagu ururiyay fataawidiisa la yiraahdo al-hawi lil-fatawa risaala ku dhex jirta waa Imam Suyuti isagu wuxuu u doodahayaa oo dood adag u galaya tusbaxu inuu sugay waa waji kala waa الرأي والرأي الآخر مو بقش هذه الجزيرة الرأي والرأي الآخر مسألة الركبة قواه علماء كم يدو ضد ديبني ما ابن تيمية ما أعرف ماله قواه رسالة لا سمر كعداد آخره وحكم هذا الكيس الإمام السيوطي عليه رحمة الله وحكم وحوري لم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالصبح أحد سلف كم إذا ولا خلف كلا جمس وجورين بيقول تصبح إنه كراهية إنه حرام يا إسكابداي حتى كراهية نمديس أحد لجز وجورين مترولي من سيوط عليه رحمة الله طيب بل كان أكثرهم يعدون بها بل بدن كود تصبح حاسب كور دين كريم هذه هو الدعوة أباهن مال إن صار أباهن لكن آثارته كان يمرك إلا ضوجله وهو ضعيف وحي حديث أو نبيك لقى كانوا أما وحي الصحابي لقى كانوا ضعيف دخلوا على أم حرام بنت ملحان فتطعمه النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام وهو إيمان شري قريب وهو إيمان شري مركزي النبي عنتا وديارين جرت وعنتا قودين جرت صلوات ربي وسلام عليه وحوليه هاي مال المالمها كم إذا النبي أتي صلى الله عليه وسلم النبي أويم صلى الله عليه وسلم وقريب هذه أويمت مركزا واحد باللوضي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمها أوجها جاتشسو قشنك إيو عيانك تمها جلا أي النبي صلى الله عليه وسلم أوجها جاتشسو أي باللوضي حديث كذا نوأوتي دونا إن شاء الله تعالى مركا قبل وحي أهيد علاقة توس أوليبا خاصة النبي قال الله صلوات ربي وسلام عليه فلماذا وحي كدو ديان أم حرام مركي النبي هو إيمانه صلوات ربي وسلام عليه أو قري هذا أساحنا ومر مركا قاركو تشيركيسا أي وحكاها جاتشينيسو يعني وحوي النبي إياذا محوءها نصب أهان محاكا نحيي حقابي محرمني ما أو كسوق شيء الوليال السويدينية علماء قاربا وحبي كل شوابان قار وحي ليهين ما هو واحد كريس يعني علاقة نجمو يحسس وكلاء إني محرمني ما كسوقن أي شرطه لما إثباتين كريو وحكو تصي لما هيو قاركود وحي ليهين ما يوحى سروبي كريسة يعني وحوي إني شرطه وحيابا أن لجور هينين أما دلشوا أما سيئونكو إيمان كريه قاركود waxay leeyihiin ma nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ummadiisa dumarkeedu jirkooda inuu taabto ama jirkooda inuu taabto xaraam kama ahayn sidaas qaar baa oranayo waxay leeyihiin arin nabiga khaas ku abayahayd ibn hajar baana fathul bariga meela kamida sida ku dooranayo wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam maadaama ummadda aaba oo kale uu ahaa dumarka ummadda aabo kale uu ahaa sida
nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani dumarkiisuba ay ummadda hooyooyin ugu ahaayeen qur-aankuna sidaa ugu sheegay marka wuxuu leeyahay waxaa dhici karaysa yani ficlan nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka ajnabiga ma salaami jiray ma gacan qaadi jiray sida sahih bukhari ku sugan haddana maca dalika haday taabtaan nabiga xaraam kama ahayn isagayna khaas ku ahayd sidaas culimada qaar baa qaba oo mas'alada halka marinaya adiga si la yiraahdo ummu haram radiyallahu anha waxay ahayd gabadhaas nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi nolosheedu ay aad ugu xiran tahay iyada iyo qoys ahaan yani reebani yani wax weeye milxaan oo dhan qisa cajiib ay gabadhu leedahay marka oo nu malaynaya inay tahay qisada keentay dumarku waa badnaayeen saxaabada waxa iyada looga doortay qisada cajiibka ee lahayd waxa weeye waa qisa ay bukhari iyo muslim warinayaan Anas ibn Malik radiyallahu anhu wiilka ay habariyarta u tahay ayaa qisada iyo xadiidka warinay wuxuu leeyahay Anas rasuulku sallallahu alayhi wasallam kana yadkhulu ala ummi haram bint milhan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid u soo gala caadi bay u ahayd inuu u yimaado ummu haram oo uu soo galo kadibna ay cunto iyo kolba waxay haysaa nabiga siisa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wa kanat ummu haram tahta ubadah ibn samit waxay ku hoos nooleedo ay xaas u ahayd saxaabiga la yiraahdo ubadah ibn samit fadakhala alayha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yawman nabiga maalin u soo galay sidii caadadiisa ahayd maalin buu ummu haram u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam thumma jalasat tafli ra'sahu salawatu rabbi wasalaamu alayhi way fadhiisatay nabiguna wuu ag fadhiistay waxay bilowday inay nabiga timihiisa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ay ka gurto injirta iyo qashinka iyo wixii ku jiray ay ka saarto ayay bilowday fanaama rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku iyadoo